waa qiso runtii aad u xanuun badan oo mudan in lagu cibro qaato, khaasatan markaan fiirino sida dadkeena Soomaalida ah ugu bateen adeegsiga internetka. Waxaan jeclaysanay inaan idin soo gudbino qisadan oo ku dhacday gabar dhowrsan oo ahayd xaas cusub. Walaalayaal, waxaan idin soo gudbinayaa qisadan oo dhab ahaantii aad ii taabatay. Gabadhu waxay tiri, waxaa burburay mustaqbalkayga, waxaa dumay gurigayga, waxaan kala tagnay ninkayga, weliba anigoo ka soo jeeda qoys dhowrsan. Weligay kuma fikirin inaan sameeyo qaladkan oo kale oo Ilaahay iga caroodo. Waxaan guursaday wiil aan isjeclayn oo aad ii ixtiraami jiray, iguna qabay kalsooni weyn, isagoo familkiisa dareemeen wanaaga inaga dhaxeeya. Dhinaca qoyskayguna waxay igula kaftami jireen, waxaad heshay nin aan hortaa gabar kale aan arkin, waxaad jeceshahayna ku siiya. Ma xasuusto shay aan odaygayga ka codsaday oo uu ii diiday. Wax walba sida ugu macquulsan ayuu iigu heli jiray, laakiin maalin maalmaha ka mid ah baan ka codsaday in uu guriga internet ii soo geliyo. Wuxuuna igu yidhi gurigayga uma rabo qad, laakiin ugu dambayntii waan ku qanciyey, waxaana ka ballan qaaday inaan wax xun ku samaynayn. Wixii intaa ka dambeeyey kadib waxaa waqtigayga ugu badan siiyey inaan qadka galo oo aan asxaab badan ku yeesho. Isaguna wuxuu aadaa shaqadiisa, mana i weydiiyo waxaan qadka ku sameeyo, waayo kalsooni badan ayuu igu qabay. Intaasi kadib waxaan isbaranay wiil ka mid ah asxaabta internetka. Waxay tiri, wuxuuna ii soo jiitay si weyn, waxaana ka helay farxad aanan weligay qof bini'aadam ah aan ka helin. Maalinba maalinta ka dambaysa waan xiriiri jiray ilaa saygayga uu ka maseero, mararka qaar inaan khadka galo isagoo guriga jooga. Waxay tiri, wuxuu waqtiga socdaba waxaa ninkayga igu dhibsaday waqtiga badan ee aan ku bixiyo khadka, wuxuuna i dareensiiyey inuusan raalli ka ahayn habdhaqanka cusub. Waxay tiri, ilaa aan gaaray heer aan la dhunto wada sheekaysiga wiilkan aan isbaranay. Waxay tiri, waxay ahayd markii ugu horeysay ee ninkayga ii muujiyo caro, waxaana halkaas ka bilowday xiriir xumo isaga iyo aniga. Waxaa qalbigayga u sii jiidmay wiilkan cusub oo haddii aan iska furo ninkan kheelida badan ii ballan qaaday inuu i guursado. Waxay tiri, wiilkan cusub baa iga codsan jiray inaan kulanno, balse markuu xumaaday xiriirka aniga iyo ninkayga ayaan go'aansaday inaan fursad siiyo jaceylkayga cusub. Ugu dambayntii maalin baa balannay oo aan is aragnay. Waxay tiri, waxaana dhex maray sheeko iyo wax kastoo rag iyo dumar sameeyaan, ilaa aan ka naxay khiyaanada aan kula kacay ninkayga. Waxay tiri, markii dambe ninkayga waxa uu go'aansaday inuu internetka ka saaro guriga, waxaana bilaabay inaan telefoon iska wacno wiilkii, oo xiriirkeennii sii saa'iday, halka uu khilaafka anigii odaygayga sii kordhay. Waxay tiri, ninkayga waxa uu arkay fariin qoraaleedka telefoonkayga ku qoran, wuxuuna aad ugu naxay waxaan ku kacay. Wuxuu go'aansaday waxyaabo badan, wuxuuna ii sheegay inuu ii cafiyey dalaaqadeedana oo i siinayo, isagoo ii ballan qaaday inuusan dadka igu ceebaynaynin oo qoyskayga u sheegaynin faxshiga aan sameeyey, taasoo jaceylka uu ii qabad markhaati ka ahayd. Waxay tiri, markii aan kala tagnay ninkayga ee aan u sheegay wiilkii, wuxuu isla markaaba ii muujiyey qalbijab iyo waxaan ka filaynin. Wuxuuna igu yidhi, weligay kuma fikirin inaan guursado gabar aan qadka ka bartay, mana jeceli inaan xaas ka dhigto qof xumaan ila samaysay, ilayn beriba qof kale ayay xumaan sidaas ah la samayn doontaa. Waxay tiri, waxaa halkaas iga bilaabatay naxdin iyo amakaag iyo cudud nafsi aan weligay ilaabaynin. Waxayna tiri, anigoo jecel qisadan igu dhacday inay cibro ka dhigtaan walaalaha isticmaala internetka, gaar ahaan dumarka. Walaalayaal, shaydaanku wuxuu maraa
xuduudaha dhiigga ee aan iska ilaalino anigana ilaahay ii barya inuu iga toobad aqbalo